Dowladda Uganda ayaa la baxday qayb ka mid ah ciidamadeedii hore ee ku sugnaa Soomaaliya iyada oo ku beddeshay cutubyo cusub oo si gaar ah loo tababaray kuwaas oo loo yaqaano kooxda 47 cutubyo leh xirfad dagaal oo sare iyo diyaar garow ka duwan kuwii hore. Ciidamada cusub ayaa la sheegay in ay qaateen tababar isku dhaf ah oo iskugu jira howlgallada dagaalka tooska ah iyo la qabsiga deegaanka iyo bulshada ay ka howlgalayaan si ay si hufan ugu gutaan waajibaadkooda nabad ilaalineed. Sidoo kale isbeddelku wuxuu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo dib u habeyn iyo tayeyn ah oo lagu sameynayo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM kaas oo bedelay howlgalkii hore ee ATMIS si loo kordhiyo waxtarka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Ujeedka howlgalka waa in aan caawinaa Soomaaliya. Waxaa la idinka rabaa wada shaqayn joogto ah maadaama hal ciidan oo ku howlgala AMISOM wada nahnay. Hadafkeenu waa inaynu walaalaheena gaaraan nabad iyo xasillooni waarta. Sidaas waxaa yiri taliyaha qaybta koowaad ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya General Jackson. Uganda oo hormuud ka ah howlgalka tan iyo 2007 ayaa weli door muhiim ah ka ciyaaraysa sugidda amniga Soomaaliya, gaar ahaan ilaalinta xarumaha muhiimka ah iyo taageeridda ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Talaabadan cusub ayaa imanaysa xilli ay sii kordhayaan dadaallo lagu doonayo in si buuxda loogu wareejiyo mas'uuliyadda amniga ciidamada Soomaaliya iyadoo ciidamada caalamiga ah ay si tartiib ah ugu baxayaan dalka. Waxaa intaasi dheer in saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda ay sheegeen in cutubyadan cusub lagu xoojiyay tiknoolajiyad casri ah iyo habab istiraatiiji ah oo lagu beegsanayo kooxaha hubaysan, taas oo sare u qaadaysa awoodooda ay u leeyihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa la filayaa in isbeddelkan uu dedejiyo qorshaha kala guurka amni ee Soomaaliya iyadoo diiradda la saarayo dhismaha iyo tayeynta ciidamada qaranka si ay ula wareegaan mas'uuliyadda guud ee amniga dalka.